wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Sulum Maxamed ayaa maanta magaalada Burco si rasmi ah uga dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo lagu ballaarinayo dhismaha saylada xoolaha ee Burco waxaana madashii lagu dhagax dhigay mashaariicdan horumarineed ee laga hirgelinayo saylada xoolaha ee Burco goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland barasaabka gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Daadmareed meeyarka degmada Burco iyo waliba madaxda hay'adda Save the Children ugu horeynba waxaa ka hadlay dhagaxdhigaasi Axmed Ibrahim Samatar oo ah madaxa xafiiska hay'adda Save the Children ee gobolada bariga Soomaaliland oo iyadu ah hay'adda hirgelinaysa mashaariicdan horumarineed waxaan maanta halka dhagax dhigaynaa mashruuc ballaaran mashruucaas waxa lacagtiisa ku deeqay African Development Bank baa ku deeqay waxa la soo marsiiyay ururka IGAD baa la soo marsiiyay hay'adda Save the Children oo fulinaysa ruuxantii aad baan ugu faraxsanahay wuxuu kooban yahay qaybo fara badan oo ballaaran waxaa ka mid ah halkii dadku harsan lahaayeen iyo xooluhuba waxaa ka mid ah dayrkii baa ka mid ah waxaa ka mid ah meelihii biyaha baa ka mid ahaa waxaa ka mid ah taangi weyn oo laga cabi doono waxaa ka mid ah masquulihii ay ka mid yihiin xararkii dararkii xooluhu ka cabayeen taangiyo iyo wax qalab ballaaran oo gobolka ku soo biiray meeyarka degmada Burco barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo iyo gudoomiyaha gobolka Daadmareed Maxamed Diiriye Xayd oo halkaasi ka hadlay hadaladoodii waxa kamid ahaa sida tan saylada xoolaha Burco oo ah saylada guud ee Soomaaliland ilaha dhaqaalaha Burco oo ka soo galanaya kamid tahay xoolaha nool insha Allah ta'ala waxaan ugu bishaareynaa bulshada reer Burcona inay noqon doonto sayladani saylad qurux badan oo adeeg loogu talagalay hadii ilaahay idin laga helo waxaan soo dhaweynaya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga oo juhdi badan u galay sidii ay u noqon lahayd sayladanu saylad qurux badan dhankiisana wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Sulum Maxamed ayaa tilmaamay in mashaariicdani ay yihiin kuwa qayb muhiim ah ka qaadan doona horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee saylada xoolaha ee Burco ku talagalkaygu waxa weeye wixii looga baahnaa saylad ama dekad xoolaad oo transit ah in laga wada helaan ku talagalnay waxa ka mid ah hararkii xoolaha waxa ka mid ah ruuxa caafimaadka ee xoolaha meesha lagu iibsanayo lagu caafimaadinayay looma baahna xoolo sayladan yimaada inay suuqa Burco galaan oo dadku qasho ayagoo xanuunsanaya waa sayladii lagu eegi lahaa looma baahna xoolo sayladan yimi inay ka dhoofaan ayagoo xanuunsanaya halkana lagu kala reebaya marka qaybtii hore mashaariic daba socota hadii aan ka samayn doonaa qaybtii hore waxa inoogu deeqday bangiga horumarinta African Development Bank waxa inoo soo mariyaan urur goboleedka IGAD kuna wuxuu u dhiibay mashruuca in la fuliyo oo ay wada fuliyaan Save the Children iyo hay'adda xanaanada xoolaha wa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.